kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliweyn Production kuna soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada caawa ku daawan doontaan hadduu rabiidma waxa ka mid noqonayo madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray dagaalada ka socanayo gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo guusha ciidamada qarabka sida ee Soomaaliya ay ka soo hooyeen dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyo jabka xooggan la gaarsiiyay argagixisada waxaan idin wadaagi doonaa fariinta uu soo saaray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku qotanta guusha ciidamada qarabka sida ee Soomaaliya wararkeena kalena waxaa ka mid noqon doona dowladda Imaaraadka Carabta oo la ogaaday in hub ay siisay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xiriirka Imaaraadka iyo dowladda dhexe oo soo gabagaboobay xogta khilaafka dowladda dhexe iyo Imaaraadka Carabta iyo hubeynta Imaaraadku ku bilaabay dowlad goboleedyada ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaare Xamza oo amar culus dul dhigay golaha wasiirada Soomaaliya wasiiro la amray inaysan dalka ka bixi karin iyo xog xasaasi ah oo la ogaaday ayaan idin wadaagi doonaa qodobada kale taas barnaamijyadeedkan ku daawan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono go'aan laga gaaray murakii doorashada Somaliland guusha Muuse Biixi iyo wajigabaxa mucaaradka abaabulka ka socda Hargeysa iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Hargeysa ee caawa ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyadeedkeena qasaayshii dhammaantiinba muuqaalkan like saara oo sidoo kale la wadaaga saaxiibadeena kala kuna share gareeya gruubyada aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin faafahinta ayaan u gudageli doonaa haddii aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray dagaalada ka soconaya gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya bayaan uu soo saaray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kaga hadlay dagaalada ka soconaya gobolada dalka isagoo si weyn u bogaadiyay guusha lixaad kale oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka gaareen dagaaladaasi socda madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku amaanay hoggaanka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halganka adag ay ugu jiraan sidii dalka looga xoreyn lahaa ururka Al-Shabaab oo muddo sanado ah gumaad ku hayay dadka Soomaaliyeed warsaxaafadeedkan uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutooyinka kala duwan ee ciidamada iyo dadka shacabka ee isgaashanayo howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada dhaca gobolada dhexe ee Soomaaliya waa kuwa halgan iyo nafurnimo ah waxa ayna ka soo hooyeen guul la taaban kara madaxweynaha waxa uu bogaadinayaa guusha ciidamada qaranka ay ka soo hooyeen dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale fariin u diray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana uu saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda nafurnimada leh ee ku aadan dagaalka ka dhan ah ururka Al-Shabaab madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeesadaan cadowga ururka Al-Shabaab ee dhibta ku hayo dadka Soomaaliyeed waxaana uu bogaadin u diray dadkii shacabka ahaa ee is-abaabulay ee bilaabay dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab fariinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo saaray ayaa imaanayso iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanayo ciidamada dadka deegaanka ah oo macuusuley la baxay guulo waaweyn oo la taaban karo ay ka soo hooyeen dagaalada ka dhan ah Al-Shabaab iyagoo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana ay gacanta ku dhigeen deegaano in ka badan 15 sano ay gacanta ku hayn jireen ururka Al-Shabaab geesta kaleetana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bilowday inay hubeyso maamul goboleedyada iyada oo eegaysa maamul goboleedyada xiriirka wanaagsan uusan kala dhaxelin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya talaabada dowladda Imaaraadka ay qaaday ayaa waxa uu imaanaya iyadoo xiriirka Imaaraadka iyo dowladda dhexe uu soo gabagaboobay wararka ayaa sheegayo in waayidii ugu dambeeyay khilaafka Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeyo marba marka ka dambeeyo uu sii xoogeysanayay xogta khilaafkan oo aynu helnay ayaa waxay tilmaamaysaa in salka ay ku hayso dowladda Imaaraadka oo doonaysay in ay daaha gadaashiisa ka maamulato xukunka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la ogaaday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka biyadiiday qorshayaal oo ay doonaysay dowladda Imaaraadka Carabta taasi bedelkeeda dowladda Imaaraadka waxa la ogaaday sidoo kale inay ka carootay safar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo magaalada Dooxa ee dalka Qatar taasi oo la sheegay in sirdoonka Imaaraadka ay ogaadeen xogta safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa Imaaraadku ka carooday lacag dowladda Imaaraadka ugu deeqday gargaarka Soomaaliya oo la musuqmaasuqay sidoo kale waxa jirtay balan ay fila Soomaaliya uga baxday dowladda Imaaraadka Carabta sidoo xogta lagu helay
taasi oo sheegayso in dib loo soo celiyo tababaradii ay dowladda Imaaraadka Carabta ay sii jirtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo xiriirka dhinaca iskaashiga militariga ee dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya u dhaxeeyay oo Imaaraadku ciidamo ugu tababari jireen dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay taasi beddelkeedana ay bilowday xiriir ay la sameynayso dowladda Qatarta oo uu si weyn u kaga carooday amiirka wadanka isku taga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa intaasi kadib bilaabay daandaansi uu ku wado dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya isaga oo durbaba sida la ogaaday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in uu hubeeyo uu bilaabay. dhawaan waxaa jiray ciidamo tababar lagu soo gabagabeeyay magaalada Beledweyne ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maamulka Koonfur Galbeed loo tababaray. ciidamadaas ayaa la sheegay in wafdi ka socda dowladda Imaaraadka oo kulan kula qaatay magaalada Beledweyne madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay u ballan qaadeen inay ka taageeri doonaan sanadda dhinaca militariga iyo waliba hubeynta ciidamada qalabka sida ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. ballanqaadkan dowladda Imaaraadka ay u sameysay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo xiriirka dowladda dhexe iyo Imaaraadku uu xumaanayo. dad badan ayaa su'aalo ka keenay qorshaha lagu hubeynayo lafta gareen oo haatan xiriir wanaagsan uusan kala dhexelin dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ka baqdeen qabo dowladdu inay duulaan ay ku qaado. geesta kaleetana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa amaro culus dul dhigay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa xog loo gaaday waxay sheegaysaa in uu soo saaray amar culus oo ku wajahan wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. akhbaraadkan oo aynu helnay ayaa ku waramayo in amarkan la dul dhigay golaha wasiirada isaga oo ra'iisul wasaare Xamza uu faray wasiiradu in aysan iyaga oo ka fasax qaadan ra'iisul wasaaraha aysan isaga aadi karin wadamada kale oo ay si amar la'aan ah ku aadaan iyo mashaariicda kale lagu fuliyo dowladaha diriska ah. ilaa haatan ma cadda sababta ka dambeyso arrintan hase yeeshee wasiirada doonayay inay dibadda u safraan ayaa hadda kadib waxa ay warqad fasaxa u qoran doonaan xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya. shaqaalaha dowladda oo kaliya ayaa kolkii hore amarkan u saarnaa inay fasax ka qaataan xarumaha ay ka shaqeeyaan kolka ay dhoofayaan. ila wareedyo hoose oo soo baxaya ayaa sheegayo in la ogaaday wasiiro qaar oo xilal hayo ay safaro dibadda ah ay aadaan iyaga oo wafdigooda raaciyo dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ay lacag ka qaataan sidaasina dalal kale ay ku geeyaan oo dibadda ah. ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ka fogaanaya tallaabadaasi ayaa bilaabay amarkan culus oo dul dhigay wasiiradiisa oo uu ku faray in uusan wasiir dalka dibaddiisa u bixi karin isaga oo xafiiska ra'iisul wasaaraha la soo ogeysiinin. tallabadan ayaa caburin iyo cadaadis ku noqon karto wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaana dadka u dhunduleela siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan inay sababi karto qaar ka mid ah wasiiradu inay isku casilaan tallaabadan darteed. ugu dambeyntiina go'aan ayaa laga gaaray murankii doorashada Somaliland iyada oo tallaabada go'aankanina uu guul weyn u soo hooyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. taasi beddelkeedana waxa uu wajigabax ku noqday mucaaradka Somaliland iyadoo golaha wakiilada Somaliland ay u codeeyeen in doorashooyinka iyo nidaamka axsaabtu la isku sidkiyo. waxaana go'aanka ka soo baxay golaha wakiilada Somaliland inta ugu badan xildhibaanadu ay cod aqlabiyad leh ugu codeeyeen inkastoo ay jireen xildhibaano kulanka golaha wakiilada muran ka abuuray. hase yeeshee go'aankan ayaa si weyn u farxad gelinayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ama xukuumadda Somaliland. wajigabax xoogan ayayna ku noqon doontaa mucaaradka. waxa wararku ay sheegayaan in go'aanka golaha wakiilada ay suuragal ay tahay inay qaadacaan axsaabta mucaaradka oo waayidii ugu dambeeyay abaabulayo banaanbaxyo ay ku diidan yihiin nuuc walba oo waqti dheereysi ah oo xukuumaddu waqtiga ay ku dheereysanayso. go'aanka golaha wakiilada maanta ay qaateen ayaa u ogolaanayso xukuumadda in waqtigeedu uu sii dheeraado. hase yeeshee lama oga sida go'aankan ay ku qaadan doonaan axsaabta mucaaradka. Hargeysa waxaa caawa ka soconayo kulamo gaargaar ah oo ku saabsan go'aanka golaha wakiilada maanta ka soo baxay iyadoo mucaaradkuna ay abaabulayaan diidmadooda ku aadan go'aanka golaha wakiilada. lama oga halka ay xaalka ku dambeyn doonto. Somaliland waayidii ugu dambeeyay waxay ku jirtay jahwareer siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka maamulkaasi. gudaha daawadayaal intaas ayaa ku soo meeraya barnaamijyada aad kala socoteen warbaahinta Soomaali Weyn Production tan iyo kulantii dambe nabadii warsan.